aniga hebel dhihi maayo dad baan ogahay haddii caawa saacan aan weydiiyo war xujaydaadu xaggay degan yihiin hoteelkay degan yihiin aan ogey wasaaraduna ay xujay soo siisay hadda ka hor way dhacday nin baa la yidhi maka la joogo sanadihii aan joognay war xujaydaada xaggay joogaan xawaalay maka un kama fogu yiri maka waa weyn tahay war hoteelku xujaydaada degan yihiin ma ii sheegi kartaa أخياري مكتمل مرة إن لا يسوي شيء جواي قف كاس وكلا الدكتور حجيري يسوي وكأجي هاي مجرو مثال شركة ذا لسي حج تضبطني هو جواي ولا يقانا وحان أركينا ضد يجي أنا هين دكتور ورها يبغوا لي كنتن حاجبان وضع حقوق كأني فحكي لك كأني ما شيء كذا ما كي وكأني مش توبي وكذا عروس ذي صومعن هنيك وحيس العروس ذي مهوجيا waxba ma oga intaasan ceeb inaan sheego ma rabe waa la asturaa ceebe laakiin waxaan rabaa walaalo xatii si aan dhahbo ma aqaane saas yaan la yeelin xujaydaada adiga lagu soo siiyay mas'uulka noqo waxaan dhibaa ka dhalan kara dhimasha iman karta dhaawac iman karo shilba iman karo hadhow marka aday kugu xisaaban yihiin dadka laga yeeli maayo dad baa la siiyay waxaan mas'uulka ahaa qofka wixii si dad kale u dhiibay macnaheedu waxay tahay mar dambe inaan mas'uuliyad lagu aamini karin soma wixii dad buu basiinaya war anaga waa siin karnay adii ma siin lagu yiri maxaa jiro hoogaa runtii waxyaabaha ceebta ay ka imanayso ayay ka mid tahay wixii dhici lahaaba dhace laakiin haddaan wada joogno walaalow inteena aan u wada istaagno aan wada ogaano xaajiga qaday kan quutay kan xanuunsaday kan lumay kan cibaadadiisa in loo saxo u baahan culuma ka buuxda dadka intaas aan u wada istaagno runtii xajkooda in moogtahay ay ku guuleystaan waa iska fursatul umri waa la sheegay dadka waa yeela u badan waxa ku badan dad badan oo baadiyaha ka yimid xajkuna waad ogtihiin mumaarasu u baahan yahay mooyaan xataa kitaab baan soo akhristay kaliya ma ahan kutubta marka lagu soo akhriyo fiqiga lagu soo akhriyo qaarkood waxay sheegayaan meesha la yiraahdo Safa iyo Marwo iyo Kacbada in wax kale ay u dhaxeeyaan maanta ma u dhaxeeyaan wixii ninka waxa laga yaabaa inuu maqlay buurta Arafo iyo wuxuu maqlay Arafo aan dhihina Safa iyo tan Marwo buur buu baraadinaya waxayna hada masjidka dhaxgaleen marka mumaarasay u baahan tahay oo dadkaas oo kale waxay u baahan yihiin runtii inaan aad uga warhayno qofkii intuu lacag soo bixiyay hadana xajkii ka halaabo anagoo intaan tiro leeg oo intaas oo moogtahay culimo aan ugu jirto nooma fiicna mas'uuliyadaas aan wada qaadan